بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن مرك هوري إلهي بينو مهدنقينا الحمد لله رب العالمين مرلباتك وحن آديا ذكو مهدنقيان وهم بلينيا أن أروركينن قرمد oo runtii dareen badan aniga gaar ahaantayda igu dhaliyay waayo taariikhda markaynu eegno reerka markaynu taariikhdiisa eegno jiil waliba waxbuu ku wanaagsanaa oo qabanayay jiilashii hore waxay dee gacanta ka hadli jireen oo waxooda waxay ahaayeen inay bur wax ku cunaan wax dilaan waxa wixii arrimahooda khalkhalinayo oo dhan ay gacanta wax kaga qabtaan jiil dhaxaa jiray iyaguna dee dhinaca siyaasadda iyo barnaamijyadaas iyo waxaa yara kobciyay jiilkan imika idinku hormoodka u tihiin runtii waa jiil dee development iyo horumar iyo barnaamij ka fakaraya dadkuna markay nolosha fahmaan ayaa waxay ka fakiraan sidii ay noloshooda u horumarin lahayn inta hore dhan waxay dee ka dhacsan yihiin nolosha markay ka dhacsan yihiin horumar kama fakiraan aad iyo aad baan runtii idinku hambaleynayaa aad iyo aadna dareenkayga wax weyn bay uga bedeshay kulliba dadka marka aragtidoodu isu soo dhawaato in badan waxaan ku calaacali jiray dadku maxay wax u fahmi lahayn barnaamijkan aad ka hadlaysay iyo waxaad ka hadlayso ay talow ula yaaban yihiin alxamdulilah in badan oo dee imika fahantay oo anagu laftigaygu su-aalihii aan isweydiin jiray aan odhan jiray talow maxaa sidaa loo yeeli waayay iga daweysay baa jirta oo idinku ka mid tihiin marka taa aad iyo aad baan runtii idinku hambaleynayaa arrinkana ku jirtaan riiga soomaalida kolleyba ka mahmaada biyo sacbadaada lagaga dhirkaabay soomaalidu tiraahdaa waxyaabaha kalifay inaanu fikir ka soo jeedino kolley waxaa ka mid a waad ogeedeen oo dee in badan baynu kala ayn dadka aynu la noolahay in biyo laynoo sameeyo asbaabo kasta ha ku kalifaan iyaga inay hor joogsadaan laakiin dee waynu waaqicii baynu aragnay inay hor joogaan waanu samaynay trial inaanu karaysano riigaga qaar ka mid a halkan qolo survey ku samaysay swedena ayaanu riig ka soo karaysanay xaafadaha kale leeyihin riigii markuu marayo 200 meters sidii ay qoladii sheegtay scientific ahayd ee barnaamijka samaysay biyo waanu gaadhnay waxaana la doonaya in 250 la qodo subaxdiina waan tegi jiray galabtiina waan tegi jiray waxaan ka maqnaa 3 maalmood oo qura 3 maalmood ceelkii waxaa lagu guray wax biyo xaniba biyahaanu arkaynay ee ceelka ka soo baxay ee sidii da cilmiyaysanaynu isla qaadanay ee kuwa drillarka ahaa iyo kuwii kale meesha joogay baanu isla wada qaadanay ayar malino waa faaruq waxba kuma jiraan waxay ku tusaysaa inaan raalli laga ahayn in si yaro fudud wax lagugu soo saaro waa qodobada nagu kalifay inaanu nidhahno war malaha waxaynu u baahanay mid aynu inagu leenay oo aynu ku ciil baxno oo cadow kasta oo waxaynaga hortaagnaa aynu ku jabino barnaamijkiisa ku jabino runtii aad iyo aad baan ugu farxay markaa barnaamijkan bilowdeen waxaanan jecelahay ibni aadamku himilo markuu yeesho gidaar weyn hadduu ka hor yimaado great wallka dee China ku yaala dhagaxiisay guraan awood bay u helaan inay guraan waayo himilada wax walba ka xoog weyn marka himiladiina fogay aad qaadateen iyo dadaalka aad qaadateen iyo visionka aad qaadateen aad iyo aad baan horta ugu farxsanahay aad iyo aadna waan idinku dhiirigelinayaa waxaana jecelahay inay midho fiican dhalaysana waan rajaynayaa dadaalka qaadeen sii wada sii badiya inteeda halka joogtaana dee kolley aanu iska tabar yaraana laakiin waanu kolley qaar badan baa naga soo bixi doona oo contribution wanaagsan ku dara inan daalin inan ka caajisin waananu idiin soo ducaynaynaa oo waxaana gashanaysaan iyo maalkana gashanaysaan aakhiriya adduunka labadaba mid ka faa'iidaysaan wey waxaan la qodayaa waa biyo waa sadaqa jaariya
sadaqadii dee saddexdii qofka ka soo hadhayay mid ka mida weeye shilinkaad gelisaa inta biyaha la cabayaba dee adiga uu kuu soconayaa ilaa qiyaamaha uu kuu soconaya waa faa'iido runtii dee dhinac walba leh adigoo dadkaagii wax taray iyo adigoo aakhiradaadii wanaajistay labada meelood bad dee faa'iidaad ka heshay marka hala dadaalo hala sii badiyo dadaalka hala sii badiyo qeyldaanta tirada iyo tayada intaba kordhiya way intaa kulley waxa ay raacaa qolkan dee ku jirtaan gurmad relief waan idinkula jiraa runtii ma seexdo habeenkii laan eego waxaan aada ugu farxaa marka kolba qof ku soo kordho lacag bixiya waan u duceeyaa inta dhimanna insha allahu tacaala waan ku guubaabinayaa inay si dhaqsaa u bixiyaan iyagana waa u ducaynaynaa intiina bixisayna waa u ducaynaynaa dee habeen walba farxaddaasaan la seexdaa marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كبعدي. waxaan macallin soo jeedinaya ilaahay inaga abuurtay islaam inaga dhigay yaa marka horeysa aan mahadnaqaya mahadnaqa labaad qurbajooga reerka meel uu joogaba iyo meel uu ku hawlaysan yahayba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaa ka soo qayb gasheen howlo adag oo caama waa ta shakhsiga iyo tacaamka waa kala gaar weeye tii caamka ahayd baa ku howlaysantiin oo ka soo qayb gasheen imankana waxaa weeyaan waxaa la yidhi hawshay ku jiraan waxa weeye inay riig soo hibiyaan waa dayaxa godkiisii helay waddankeenna dee biyana kama dhowaa maxaan idhaahdaaye ceellaasina kama dhowaa waxoogaagii baraagta aynu waxaynina waa iska onagaroobeeno waa finish garoobeen ma celiyaan biyaha wax yar mooyaane dabeedna kaliishu markay waxoogaa yar dheeraato dadka waxay noqotay caawa xaggaa nin waliba nin itaalle iyo ninaan itaal lahayn booyad xaggaynu ka doonnaa booyadaasaa marka dambe ceel u noqonaysa dadka ceel u noqonaysa oo biyo u noqonaysa taasi waxa weeyaan ilaahay ha idiin suuro geliyo annaguna waa ku soo ducaynaynaa riiggu dee caawa aad iska leedahay oo cid aan isu daba taagayni waxa weeyaan waa hantidaadii ood gacanta ku haysato oo kolba halkii caawa wax lagu sheego aad ku dhufanayso waxa weeyaan taasi hantidu waa wax qaaliya waxaanad hay-ad ka daba taagnayn waxaanad dawlad ka daba taagnayn wax caawa aad gacantaada ku jira waa wax ilaahunbaa laga helaa tacabka allah idiin xasiliyo waa idiin soo ducaynaynaa kuna howlgala waa arrin muhiima oo aad iyo aad iyo aad riiggaasi u muhiima weeye waa idiin mahadnaqayaa meelaad joogtaanba ilaahay khalqal iyo khilaafna ha idinka saaro naarta ilaahay ha idinka nabadgeliyo تعبكنا إلهي هيدين حصليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما توكيك شرفت له حبلية إنما يري وين وربتشوق يقلقلشوق ميركستوا تشوقتان مركو هوري waxaan idinku soo salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinku soo salaamayaa salaan waalidnimo salaan wada dhalasho salaan madax dhaqameed salaan qalbi iyo tolnimo iyo wada dhalasho iyo ehelnimo ku dheehantay baan idinku soo salaamayaa salaan kadib waxaa mahadle allah subxaanahu wa tacaala inaga dhigay muslim insha allahu inaguna dili doona muslimnimo waxaa mahadle allah yaqiinta inoo xoojiyey waxa mahadle allaha isku duubni iyo wada jirkeenna iyo wanaageenna istusay
waxaan u soo gudbayaa oo kale maanta waa maalin jimco ah waa maalin aan jecelahay in aynu kulliba kala ducaysano waa maalin aan jecelahay inaynu isxusuusino oo ciddii wanaagga ina horseeday aynu nidhaahno thank you waxaan odhan lahaa inamadeenna gurmad amba gurmad relief guddoomiyahooda iyo guddoomiye ku-xigeenadooda iyo kalkaaliyaashooda iyo halgamayaashooda habeen iyo maalin aan arkay u soo jeeda waxaan odhan lahaa ilaahay haydinka jasaaysiiyo shaqo fiican baa u qabateen dadkiinnii shaqo fiican baa u qabateen diintiinnii shaqo fiican baa u qabateen naftiinnii geesinimo aniga iyo salaadiinteennu dhammaanteed iyo madax dhaqameedkeennu oo dhammi waanu ku waafaqsannahay waanaanu ku raacnay waanaanu ku garab taagannahay waxaan ina xusuusin lahaa subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu inoo abuuray wamaa khalaqta aljinna waalinsa illaa liyacbuduun inaynu horta bal marka hore aqoonsanno inaynu addoon ilaahay nahay oo aniga iyo idinka baan idinkula talin lahaa inaynu addoonnimada iyo xadhigga ilaahay haysanno yaan idinku dheeraynin waxaan idin odhan lahaa ciddii bixisay adduunyada ama accountkaas sii dhigatay ilaahay ha ka jasaa'isiiyo odhan maayo halkay ka soo saareen halkay sii dhigteen ilaahay siday u tala galeen ha ugu oofiyo cidda kale ee aan weli jaanis u helin iyo cidda aan liiska ku jirinna arab waxaan tolnimo iyo ehelnimo iyo waalidnimo idinka codsanayaa in aad liiska soo gashaan lacagtana bixisaan baahi miyay dhammaataa maya ma dhammaato adduunku waa sagaalada inta tolkeen uu baahan yahay inagama dhammaanayso gurmad baynu ku jiraynaa inagamana dhammaanayso waanaynu ku hawlgelaynaa waanaynu la shaqaynaynaa diyaar baanaanu nahay annagu madaxa dhaqameed ahaan inaannu hiil iyo hooba la garab taagnaano guddida iyo tolkaba waxa isku darsaday ee hawlgalay ilaahay waxaan inooga baryaa subxaanahu wa tacaala inuu tolnimadeenna wadajirkeenna walaalnimadeenna ehelnimadeenna ilaahay inuu taam inooga yeelo ilaahay waxaan inooga baryayaa inaan cadowgeennu inaga guulaysan ka isha iyo ka afka iyo ka uurka iyo ka adinka inaan midna inaga guulaysanin ilaahay waxaan inooga baryayaa inaynu isku soo nimaadno inakoo barwaaqaysan oo dalkeennu waa aragteen sida kilalka shanaad geelii iyo beertii ay isku garab haystaan ilaahay waxaan inooga baryayaa kuwii guulaystay inaynu noqonno waanan idin wada salaamaya meel kastoo joogtaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاسهل أمورنا dhammaan waxaan salaamaya walaaladayda qaaliga ah gurmad relief halkan maanta waxaa ku arkaysaan guddidii qaybta Hargeysa oo runtii halkan joogta walaalayaal intaas salaanta ka bacdi waynu ognahay runtii hawsha aynu u babac dhignay iyo baaxadda leedahay muddadii aynu ugu talagalnay in lacagta la soo bixiyana waa iska gabagabo ay dhamaatay hawshina waa halkeedii may taagan tahay laba qodob oo kaliya baan runtii aan oranayaa qodobka koowaad waxa weeye waxaynu ognahay diinteenu waa marjaca rasmiga inuu u noqonayno rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxa uu yimid dadkii fuqarada ahaa in waxba haysanin markaas ayaga oo arkaya dad la mid oo maartay Ilaahay xoolo siiyay oo maartay wax bixinaya markay arkeen bay iyaguna isku arkeen inaan waxba haynin rasuulka Ilaahay bay ku yiraahdeen dadkii xoolaha lahaa waxay la tageen ajriyadii oo dhan sidan u soomayaan sidan u salaada u tukanayaan laakiin xoolahooda wixii dheeraabay sadaqaysanayaan halka waxaad ka arkaysaa runtii dadka Ilaahay xoolaha siiyay sida u dadaalayaan iyo khayrka qofka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayrka waafajinayo marka walaalayaal hawsha halkii bay inoo taalaa walaalaha wax bixiyana waynu u duceynaynaa in Ilaahay arsaaqada u barakeeyo oo Ilaahay xooga u barakeeyo Ilaahay albaabada khayrka u furo walaalada wali aan wax bixinna دين يجونا صوب حيان ويوجدان ذا خير إن مارتي كسر دلالنا دي لا كده إن شاء الله تعالى وإنه أجن رنتي ويا بدن بيسكتشرو دي بدع وحياة كأنه حكم ذا رمضان بينه قلني هذانا مركز عيدي بعد يلا قلي يضنا هول أو هو شيء ذا إسكاله هذانا رنتي وحي كده بينا وحلا قلي مارتي محيه ذي حج كي بعلا قلي
iyadoo kale asbaab waxaa ka mid ah dee maaragtay lacagta ingiriiska hoos u dhac ku yimid haddana runtii markii xajkii laga yimid dee waxaa iyaduna jirta ciidihii iyo adxiyadii iyo waxbaa deedu kule waxyaaba badan iyo safarra iyo fasaxyabaa jira oo runtii aynu ku sababayn karana inuu dibadhacu ku yimid hase ahaatee haddana in lagu talagalo qorshaha oo maaragtay maxay ahayd dee aan la caajisin in la dadaalo ilaa xil baynu qaadnay ayaanu u baahannahay waliba intaan ka sii kordhin oo ka sii badin insha Allah ta'ala sida awgeed runtii duruufaha aan ka soo sheekeeyay awgeed oo runtii jira oo dee macquul la ah waxaanu markaa aynu runtii garanay in muddada aynu kordhino oo intaa sanadka imika ka hadhay waqti aynu siino walaalaha aan waxba imika aan wax bixin inay maaragtay dadaalaan si aanay khayrka uga hadhin waayo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayrka u baratay buu yiri marka walaaladeenna aan wali waxba bixin iyaguna yaanay moral jabin oo oran wallahi muddada way dhamaatay malaha dib baaba hawshii u dhacday in aan waqti siino marka hadii ilaahay ka dhigo inta sanadka ka hadhay baa la idin siinaya walaalayaal qolada aan wali wax bixin marka ku dadaal insha Allah ta'ala inta sanadka ka hadhayna ku soo dadaashaan oo soo bixisan insha Allah ta'ala biidhnillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلهي سبحانه وتعالى ما هذا اسكله ولا ليال الله سبحانه وتعالى waxaanu ka baryaynaa in dadkii walaalaha ahaa wixii ay isku qoreen bixiyay waqtigii loogu talagalayna soo bixiyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu barakeeyo maalka iyo muruqa iyo maskaxda ilaahay subxaanahu wa ta'ala adduunyadooda iyo aakhiradooda inuu ugu wanaajiyo ilaahay weydiisanaa subxaanahu wa ta'ala waxa kaloon ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baryaynaa walaalihii isku qoray laakiin aanay wali u soo sakhirmin ama u soo fududaanin in ilaahay u soo taysiiro u soo fududeeyo inay soo bixiyaan wixii ay ballan qaadeen oo ay isku qoreen taana ilaahay baynu in badan weydiisanaynaa subxaanahu wa ta'ala maalmaha khayrka badan leh inuu inaga aqbalan ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu aad ugu rajo badannahay waxa walaalayaal muhiim iyaduna qodobka saddexaad ah dadka aan wali bixinin waqtigii markii duruufaha hore looga sheekeeyay la eegay waxay noqotay in lagu daro waqti dheeraad la siiyo jaaniskana walaaluhu ay ka faa'iideeyaan oo ay ku dadaalaan ilaahayna subxaanahu wa ta'ala tala saartaan oo la kaashadaan bishadaas saddex inta sanadka ka hadhay ay ku soo dhameystiraan walaalaha aad iyo aad baanu arinta looga codsanaya oo aanu ilaahayna u baryaynaa subxaanahu wa ta'ala qof kasta oo niyooday khayrka in ilaahay u soo fudeediyo waxaan leenahay barakallahu fiikum wali hawshu waa idin sugaysaa sidii baan idin sugayaa waqtiga dheeraadka waxa loogu daray in walaalihii wax ballan qaaday ay soo dhameystiraan ilaahayna waxaan ka rajaynaa subxaanahu wa ta'ala inuu soo fudeediyo dhammaan waxaan leenahay cidii bixisay ilaahay subxaanahu wa ta'ala tuka khayr badan halkii ay ka soo saaray Allah u soo galiyo ilaahay waxaan baryaynaa subxaanahu wa ta'ala cid kasta oo wax ku darsatay inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala badiil khayr qaba adduunyada ku siiyo aakhirana jannatul firdaws al-a'la oo ilaahay ku siiyo subxaanahu wa ta'ala isaga iyo waalidadiiba ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka walaal wixii aad ballan qaaday waqti dheeraadana lagu siiyay ka faa'iideyso jazaakallahu khayr wa barakallahu fiika oo walaalaha wixii aad ku soo taraysa halkii aad ugu tala gashay ilaahay subxaanahu wa ta'ala tuka badan ku soo galiye ka faa'iideey baan ku oran lahayn wajazaakumullahu khayr bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu horta waa Cabdullaahi Nuur Xuseen waxaan ahay inanka xisaabta kaasheerka ka lacag kastoo soo dhacaysa iyo tu kastoo la soo diro akoonka saadka iyo tadahabshiil mar walba dhaqdhaqaaqeeda la socda iyo qof kastoo soo diraya in kulli qof kastaaba wuxuu soo diray wixiisu meel kama halaabayaan sidii loogu soo talagalay bay ugu soo dhacaya riiga lacagta ugu talagalay halkeediiba ay ugu dhacaysaa marka haddaan sheego oo aan ku soo dhawaado waqtigo gaaban awgii lacagta hadda aynu haysano ee noo taala akoonkeena hadda waxa weeyaan 50,848 iyo 6 senti xitaa kii sentiga soo daray sentigiisii uu ku jiraa akoonkeenu inoogu jiraa marka waxaan oran lahaa walaalaha muddadii loogu talagalay ku soo bixiyay lacagtii aad baahansiin kuwa kale qayb soo diray ee wali ku harsantayna sidoodii hoos soo diraan inta kale ay suurta gelin inay soo diraan lacagtii ay soo dhameystiraan muddada loogu daray 3 bilood ee ku eeg December 13keeda ha kaga faa'iideystaan lacagtina ku soo diraan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دمان خيارتي كجرتا ururka gurmad relief waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh
runtii imika waxay ka soo wareegtay muddadii aan bilownay mashruucan biyo qodista gobolka ama deegaanka muxuu ahaayey ay reerku degaan muddo 5 bilooda oo xilligan bilownay taqriiban waxay ahayd markii aan abaaraha ka baxnay bishii afraad bay ahayd kadib sidii la isla gartay in bisha afraad ilaa bisha Sebtembar 5 bilood la qabsaday oo lagu soo dhamaystiro mashruuca riiga run ahaantii maadaama aan xagga aan u yara badnaa xagga xiriirka gudaha iyo dibadda iyo xagga finance-ka dhaqaalaha dadkii isqoray waqtiga ee la diiwaangeliyay 500 ballan qaaday tiradooda guud waxay ahayd 232 qof lacagta marka lagu dhufto calaa qof $500 waxay isku noqonaysay $116 waa lacag aad u badan wax badanna ka qaban lahayd muxuu ahaayey deegaanka laakiin nasiib darro may dhicin oo sababaha walaalkeen Sheekh Maxamed Muuse uu sheegay ee safarada la galay dhaqaalihii Ingiriiska hoos u dhacay iyo aduu muxuu ahaayey cudurdaar badan xajkii ciidihii ayaa kalifay inay dib u dhacdo run ahaantii guud iyo dibadba waxaa la isla gartay markaa in muddadii la dheeraysiiyo oo ilaa December laga dhigo hadduu leedmo insha Allah bisha 12aad lacagta maanta inoo soo hooyatay waxa weeyaan 50,848.6 runtii waxa aad aan maaragtay dee uga rajan weyn inay lacagtaasu ay ka badnaan leed intaas 116 ku noqon lahayd laakiin nasiib darro may dhicin walaalaha soo bixiyeyna waxaan ilaahay uga mahadnaqaynaa ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay halkaa ka soo saaray wax ka khayr badan ugu bedelo kuwa ay ku harsantayna waa deyn iyo ballan qofku qaaday inuu iska soo bixiyo qofku oo xagga ilaahay iyo aakhiradiisa uu wax sii horumarsado markaynu eegno dadka tirada guud ee lacagta soo bixisay waa 105 qof 105 qof may wada dhamaystirin oo 500 may wada bixin laakiin waxa ku jira qaar 100 bixiyay qaar 200 bixiyay tirada guud ee inoo qorneedna waa 232 qof marka halka waxaad ka qiyaas qaadan kartaa in dad badan ayna bixin marka dadkaan bixin walaalayaasha waxaan ku dhiirigelin lahaa inay sida ugu dhaqsaha badan leh December intayna dhamaystirin inay soo wada bixiyaan